وهدية تسوي علنا يقدافني وهدية تسوي علنا يقدافني حاجات حاجات ما هو مقيسة علنا يقدافني حاجات ما هو مقيسة markaanu runtii waxaan ka faa'iideysanayaa maanta inaan la hadlo madaxweynaha cusub Muuse Biixi waxa weeyaan Muuse waxaan leeyahay horta Muuse maanta waxa u furan fursad dahabiya fursad weyn oo dahabiya maanta u furan waxa weyn page cusub buu furi karaya page-ka cusub ma furi karayo isagoo wasiiradan boobka iyo maxaa hayde xumaanta lagu hayo waliba de cadeyntoodii la hayo hadduu haysto de markaa maxaa haydin waxa lagu bedeli ma jirto annagu haddaanu nahay wadani waxaanu doonaynay inaanu isbedel nabad qable iyo isbedel wanaagsan inaanu keeno hadduu isbedelka maanta Muuse uu keenayo isagay gacantiisa maanta ku jirta waxa wasiiro ee halka ku jira ee la garanaya inay hantidii ummadda ay boobeen ee miskiinada yar ee khudradda iibinaysa taxpayer-ka ahayd maxaa hayd cashuurta laga qaadayay boobe ee u naxi waayay ee u nusbayn waayay hadduu soo ceshado waa nasiib darro isaga haysata hadduu laakiin page cusub maanta ka fursada uu maxaa hayd qaato oo uu dad wanaagsan oo cusub uu keeno oo shaqeynaya oo hantidiidii wixii uu ka daban tagi karayo inuu ka daba tago maxaa hayd dekada iyo military base kan aad iyo aad looga wada maxaa hayd baqanayo waxa kaga iman karayo uu dib u eego de in uun bayn oran karayna maxaa hayd de isbedel waa la keeni karaa anuu Faaduma ahaan mid baan ballan qaadaya imaka anuu hadduu Muuse Biixi uu wasiiradaas oo dhan daadiyo wasiiro cusub oo la shaqeyn karayana uu keeno madaxtooyadana uu ka dhigo madaxtooye ay ummadu leedahay ee aan ahayn madaxtooye uu xisbi leeyahay ama qoys leeyahay anaaba ugu horeynayaba qof hambalyeeya markaanu runtii waxaan ka faa'iideysanayaa maanta inaan la hadlo madaxweynaha cusub Muuse Biixi waxa weeyaan Muuse waxaan leeyahay haddii madaxtooyada aad ka dhigaysid qoys aad adigu leedahay inay ku jiraan oo noqon doonto gurigii Muuse Biixi aday nasiib darro kugu tahay haddaad adigu ka dhigaysid madaxtooye ay Somaliland ay wada leedahay oo macaarad iyo maxaafid baa dadka isku keenaysid oo leedahay maxaa had war aqoonsigii Somaliland iyo nabadgelyada Somaliland aan ka wada shaqeyno oo waa xabada beeda aynu wada ilaashanona de ahlan wa sahlan haddaad laakiin dariiqii ay qoladii hore ay raacdayna aad raacaysid de waxaad ku seexataad ku soo toostaa inaad macaaradadii ugu xumayd ee abadkeed inaad maxaa hayd la kulmi doonto insha Allah bidmilaahi